sababta dad badan ugu aaminsan yihiin fikir khaldan guushu waa iyaga oo arka natiijada ugu dambeysa ee shaqo adag oo qof soo qabtay isla markaana u maleeya inay nasiib ahayd. weli ma maqashay sheekada nin la yiraahdo Morgan Freeman? haddii aad wax badan daawato filmaanta Hollywoodka waxaa laga yaabaa inaad ogtahay inuu ka mid yahay aktarada Hollywoodka loogu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan biladaha filmaanta ee loo yaqaano Oscar. taasi waa waxa dhab ahaan ay ka yaqaanaan dadka aktarkan, balse wax fikir ah kama haystaan halganka uu soo maray ka hor inta uusan noqon aktar caan ah oo guulo waaweyn gaaray. Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka marka ay taariikhdu ahayd 1937 waqtigaas oo ku beegnaa waqtigii midabta koorka lagu hayay dadka madow oo aadka u xooganaa, ayadoo ugu wacan tahay dhibaatada iyo cadaadiska midabta koorka. qoyska waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican tan waqtigaasi ka jirtay dalkooda. Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar, lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badanna wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaanta. marar badan waxa uu isku dayay inuu noqdo aktar, balse kuma guuleysan. waqti aad u dhar kadibna wuxuu is arkay isagoo duuliya ama pilot ka ah diyaaradaha militariga. waqti kadib Morgan wuxuu xaqiiqsaday in mahiinada uu dhab ahaan u jecel yahay ay tahay aktarnimada, waxaana go'aansaday inuu daba socdo oo aanu ka daalin sidii uu aktar ku noqon lahaa. Morgan da'diisu waxay gaartay 45 jir isagoo wax guul weyn ah aana gaarin, laakiin muu niyad jabin. wuxuu sii wada isku daygiiba wuxuu guuleystay markii da'diisu gaartay 50 jir ilaa uu kama dambeystii matalay filmaan caan ah. markay da'diisu noqotay 67 jir Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay bilada aflaanta kadib jilistii loo wada bogay ee filimkii la magac baxay $1 Million Baby. haddaba maxaa ka mid ah casharada laga baran karo noloshii Morgan Freeman? 1. waxaad u malaynaysaa inaad ka habsaantay xilligii aad riyooyinkaaga eryan lahayd. Morgan Freeman wuxuu guuleystay markii ay da'diisu ahayd 67 sano jir. ma u malaynaysaa inay da'daada weynaatay ama aad ka habsaantay xilligii aad riyooyinkaaga rumayn lahayd? haddaba ogow, Morgan Freeman wuxuu bilaabay inuu guuleysto markay da'diisu ahayd 50 jir. haddii aad u jeelan tahay oo aad jeceshahay inaad ku guuleysato wax, weli maadan habsaamin. lambar 2. ma nasiib baa mise waa adkaysi? qofka si uu guul u gaaro waa inuu la kulmaa guuldarrooyin badan. Morgan Freeman wuxuu guuldareystay marar badan ilaa da'diisu gaartay 40 jir isaga oo wax guul ah gaarin, balse maadaama uu ahaa qof aad u adkaysi badan wuxuu maareeyay inuu ku guuleysto riyadiisii markuu 50 sano jir gaaray. dhinaca kale, arrintani nasiib ma aha, balse waa ku celcelin badan ilaa aad ka gaarayso waxa aad rabto. raac oo ka shaqee waxa aad jeceshahay. kuma guuleysan kartid shay haddii aanad jeclayn, balse dhab ahaan waxay noqon doontaa mid aad kuugu fudud inaad ku guuleysato waxa aad jeceshahay marka la barbar dhigo ku guuleysiga wax aad neceb tahay.